waxaa la yidhi xasan gargurte ayaa masaajid ku yaal jarmalka kaasoo xamanay masaajidka cibaadada loo tagaa dadka lagu maxanta horta kow waxaad ogaataa kuwa aad ush la sheekaysanayso sawiradaas iga soo kaa qaadeen sawiradaas ma aragtaa sawiradaas iga soo kaa qaadayeen waxay ahaayeen wada aqoon daahir calasow adiga waxaad u haysatay niman abgaal ismaana laakiin waxay ahaayeen baro daahir calasow waxaad la kulantay dad kale oo meesha muddo la dhashay waxaad tiri daahir calasow abgaal ismaanow nacabya xasan garguurtow dadka aad wajir ku weerartay ee daawud iyo kabaalo lahaa ee aad taangiyada amisom ku dhammaysay ee aad ciidanka militarigu adeegsatay ee aad ciidanka nasuw adeegsatay ee tii aad dhigtay la ogaa ee axmed daaciyo ahay ninka kaliya ee degmada wadajir difaacay aad xabsi dhigtay ee odayaasho mudulada ku yimid aad ku tiri iga bax albaabka iga bax aad tiri daawud kaad laysa jaarsamay ahaayeen daawud kaad laysa akiisho may ahaayeen daawud kaas aad caruurtooda dhamaysay ma oramay ahaayeen waxa weeye dhigahaaga afkaaga soo maqlaan haddaan imaamka abgaal ismaan ahaa lahayna intaan shir jaraa'id qabtaan dhehlaa kan abgaal ma ahee annaga ayaa naloo qaban wuxuu sheego marka loo hadlaayo abgaal ismaannimo iyo marka loo hadlaayo lafweynimo muduladu waa kaaga lafweysana aniga raaga ceelan ku dhashay aniga gilinsoor kuma dhalan gaalkacina kuma dhalan waxaan isku halaynayaa inaan cod ka helo shabeellada dhexe oo ah wiilkoodii haddaan taga cadale anaa iskale haddaan taga raaga ceel anaa leh jawhar anaa leh warshiiq anaa iskale runirgood anaa iskale adiguse waxaad ku dhalatay jallaqsi abtiyaasha inay codku siiyaan lama hubo gugurnubay gaaljecalna warkooda dhaaf haddii laga hadlaayo magaca Soomaaliyeed adaa ceebeey haddii laga hadlaayo magac hawiyana adaa ceebeey haddii laga hadlaayo magac abgaalna adaa ceebeey intaba adiga wasaqeey taariikhda ma dhicin Soomaaliya inuu yiraahdo gabdhaha Sacuudi Carabiya ha qaataano gabdhaha sharafta badnaay oo jirkooda ka ganacsadaano taariikhda ma dhicin Soomaaliya inuu Kenyaati u sujuudo taariikhda ma dhicin nin madaxweyne ah oo Soomaaliya inuu dadkiisa yol dhameeshaha ku dulcabo taariikhdana ma dhicin nin madaxweyne ah oo Soomaaliya ama madaxweyne adduunka soo maray ma dhicin inuu yiraahdo Boko Haram waxa lagu soo tababaray dalkayga Soomaaliya oo dadkiisa dinba ay salahayn dusha ka saaro taariikhdana ma dhicin nin abgaal ismaano waxa sameeyay taariikhdana ma dhicin nin hawiyaha waxa sameeyay waxaan gaarnay inaan maanta la sheekaysan weyna dadkii oo leeyahay war ninkan waa hawiye oo leeyahay war ninkan waa abgaal bal wuxuu falaya arka waxa soo ceebana adaa hawiye u soo jiiday waxa soo ceebana adiga u soo jiiday abgaal ismaan marka hadalkaagu wuxuu la mid yahay Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Mahad Salaad iyo ninka la yiraahdo Odawaa iyo rag inta tagay hobay yiri dahar calasow habargeeto nacabiya waxa weeye damo jidid waxay dhistay dunida lama maqal waxay burbursan mooyee damo jididna ma xishooto waxa sida dhee lahaa adiga iyo ilmahaaga idinkoo magac hawiyootiin ama habargeed ahaada ama abgaal ahaada ama qolooyin kale ba ahaadee magaciina yuu noqon mid xumaan ka marakaca maskaxdiina yay noqon miduu faarax toobaas ina wanle oo maamulo waxaan ku leeyahay haddaad madaxweyne Soomaaliyeed tahay ka xisho waxa aad samaynayso ilmaha kale ani u jawaabi maayo Cabdiraxmaan Yunus ka mid yahay oo Cabdiraxmaan Yunus wuxuu ahay ninkii markaad weerartay wadajir oo Axmed Daaci iyo dadkii Daawud ee meesha deganaa aad dhamaysay ribood qoray ee gaalada ku yirin dagaal ogaha la weeraro argixisada al-shabaab mutaqaan taageeray oo la soo qabtay marka dadka noocaasa ani u jawaabi maayo ee wiilasha faarax gaaban leeyahay anu gaar xun ka baydhabo ku dhashay tilaabo ka qaada kuwa kale sheegatada ee Suudaanta Koonfureed kuwaara waxaan leeyahay Ismaaciil Shakeetiyow Cabdi Asxil Dhibaanow idinka u jawaaba kuwaas inaan qabiil taageerno waa ka ilbaxnay waxa weeye u shaway ku dhacaysaa nin kasto siyaasiye oo daalimo ama hawi u dhalo ama daaro u dhalo ama dir u dhalo ama rixawan u dhalo ama jarweyn u dhalo waxa weeye nin kasto daalimo waa la garaacaya qof kasto Soomaaliya iyo qof kasto qabiil ah oo marka siyaasigiisa wax laga sheego
u arka inaan wax ka sheegayno beeshiisa waa u ayaan darradiisa iyo garaad xumadiisa badahaad ku dhammaanaysaan dhalinyar Soomaaliyeed muxuu idin qabtaa siyaasiga reerkiina carruurtiisa oo dibadda geystaa carruurtiisa nolol fiican ku noolaado adiguna gaajaad ku dhimanaysaa askarta Soomaaliyeed maanta kuwa ama Soomaali ka qiimo badan askariga Soomaaliyeed macna kuma dhisna dadkii Soomaaliyeed maanta qiimo ma joogaan lacag ma joogaan maal dhaweyd muxuu urduuliyay Daala Airline wuxuu markaan hawada galay in u sheegay inuu qarax dhacay ayaa la yiri baarashuudku bood markaasaan ku jawaabay 74 qof ee aan wada kama qiimo badni macnaha ayagu waxay leeyihiin baarashuudku bood taas waxay kaaga barqaad furaysaa qofka Soomaaliga qiimo leh kuwa saar macnaha waxba ma arkaanba waxa weeye maanta siyaasiyiinta Hargeysa la garaacaya kuwa garab waa la garaacaya kuwa cadaadii dhul Soomaaliyeed jooga la garaacaya kuwa beledweyne joohar jooga kuwa baydhabo jooga Kismaayo jooga kuwa xamar jooga dantooday wataana danteena ma wadaan dan Soomaaliyeed ma wadaan dan gaara ayay wadaan waxa loo tartamayaa sidii dhiiga shacabka loo kala dhuuqi lahaa waajibku saaran wuxuu yahay inaadaas dhihin markaan ka sheego Xasan Garguurto wax abgaal wax ka sheegaya markaan ka sheego gaas majarteen wax ka sheegaya markaan Siiraayo iyo Muuse Biixi walaacada ka sheegaas dhihin isaaq wax ka sheegaya markaan Axmed wax ka sheegaas dhihin ogaado wax ka sheegaya waxaan wax ka sheegaya waxa weeye waa dadka doonaya inay dhacaan annagana waxa maanta la ogaaday oo Soomaaliya ogaateen in haddii Soomaalidu wax walba lagu sameeyo ay 4 maalmood kaliya ay tahay qayldhaantooda Xasan Garguurto hadduu yahay siyaasi hawiye ama mid hiraab ama mid abgaal ismaan ma dhaheen gobolka Banaadir federaalka xaquuq kuma leh taas dhalinyarada ugu filan maanta cadayn gobolka Banaadir xaquuq ma leh ka dhahaya